cadowgana waxaan leeyahay qawaariij waqtigeedii waa iska dhamaaday meelihiina dhuudhuumashada ku soo gala dhala basiina soo qaata annaga askarteena waxay wataan midi dheer waxay wataan maxaan ku iraadaa qorigooda waana leedin wada gowrici doona haddaadan hadda isu soo dhiibin waana leedin gubaa xaqiiqa idin sheegaya galabta waxaan joognaa meeshii aan hore u joognay oo nuur dugla ah alxamdulillaah wax dhiba kama jiraan cadowgana waa la raacdeeyey oo maxaan ku iraadaa ciidamadii qaranka iyo ciidamadii deegaanka ee dib u xoreynta ku daba jira waana maxaan ku iraadaa laga dabageli doonaa meel walba oo galo waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed mid ha loo noqdo waaba loo yahay hawshaan dhinacyada ha laga qabto waan ku soo celinayaa maalin dhaweedna waa ka hadlay jikooyinka iyo mawlacyada waxaan leeyahay waa inay maxaan ku iraadaa ay hawsha gashaa oo ay qawaariijta la dagaalantaa garabkeenana soo galaan ciidamada qaranka iyo maxaan ku iraadaa ciidamada dib u xoreynta shacabka Soomaaliyeed ay kacdoonka ay sameeyeen waa inay qayb ka noqdaan taasaan leeyahay aniga mar kale aan ku celinaa waliba fikirkayguna waa midka kaliya oo cabiraya kaas ah cadowgana waxaan leeyahay qawaariij waqtigeedii waa iska dhamaaday meelihiina dhuudhuumashada ku soo gala dhala basiina soo qaata annaga askarteena waxay wataan midi dheer waxay wataan maxaan ku iraadaa qorigooda waana leedin wada gowrici doona haddaadan hadda isu soo dhiibin waana leedin gubaa xaqiiqa idin sheegaya insha Allah waqtiga soo socdana agtiina iyo meesha joogtiina imaan doona ciidamadana waxaan leeyahay aad u maasantiin hawsha qabateen dadka deegaankana waxaan leeyahay aad u maasantiin barwaaqada aad hesheen waxaad ku hesheen alla dartiis iyo qawaariijta iska ceyriseen insha Allah intaas ka badan waa heli doona hadduu Ilaahay raado deegaanada kalena waxaan leenahay abaarta ka baxa qawaariijta idin ka tagto because intay joogaan wax nacfi oo la heli doono ma laha insha Allah garabkiina Allah galo ciidamada dib u xoreynta goob walba ay ka dagaalamayaan haddii galgaduud tahay haddii hiiraan tahay haddii shabeellada dhexe tahay haddii mudug tahay intaba waxaan leeyahay aad u maasantiin qaranka Soomaaliyeedna waa idin abaalgudi doona hadduu Ilaahay yiraahdo ilaahayna wuxuu idin maxaan ku raadin ku jisayn doona jannaya ajir insha Allah maxaa yeelay qawaariij ninkii dilaana waa ahlu janno ninkii dilaana waa ahlu janno waxaan idin leeyahay shacabkaygow hal halgamo xildhibaanada hogaaminaya dagaaladan waa u mahad celinaya iyo siyaasiyiinta kale aad u maasantiin maxaan ku iraadaa askarteena dhamaantiin iyo dadka shacabka ee kacdoomayna waxaan leenahay hore u socda hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah waana guuleysanaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo